mudane madaxweyne munaasabadan hadda ah oo aynu ku sharafnay saraakiishan ka soo baxday koorsadii staff college-ka waxaan madaxweyne ku sheegayaa meeshii lagu qabtay xafladda oo kumayaal qof isku yimaadeen oo military attach oo dhan ra'iisul wasaarihii wasiiradii joogaan waxaan noqonay horta qoladii ugu sareysay bilada dahabka la siiyay ee noqonay waa koow talabaad grade-kan ragani wuxuu grade-kii ugu sareeyay iyaga isku xigay badan oo Suudaan iyo Ethiopian iyo wax yaa meesha ku jiray record bay dhigeen oo ninka taliya kulliyada u gudbiyay Allah una xariistay inkastoo ay hadda tahay ninkii dhiman jiray wuxuu war nimanka waa loo gudbinaya reportkii si gaar ah wuxuu meel loo dhigo madaxweyne murtidii hadalka waxa qaatay taliyaha oo maanta waa maalin farxada geeskan ku nool lahayna hadaynu dalkii ugu weynaa Ethiopia ardaydiisii iyagoo intaas oo dhan stable ahaayo deganaa ay sanadii hore dugsi kuwii ka kharajinay inaga ugu sareynay imikana inagu ugu sareyno waxa weeye waa guul kelmadan islaadana waxa iga qaatay taliyaha oo ah wax lagu faano wasaaraddeena waxbarashada waxa aad loogu farxo waxa madaxweyne la yaab leh inagoo dawladda yara inaynu haddana boqolka kun muxuu ahaay Afrika isugu yimid Ethiopia muxuu ahaay jaamacadaha militariga inaynu kuwii ugu sareeyay soo qaadano waa arin mucjiso ah weeye waa arin adiga sharaf ku ah waxaana muuqata madaxweyne inaad dhistay wasaaradda gaashaandhigga anigu waxba mahadnaqmaayo waxbarashada iyo mahadnaqmaayo waxaan mahadnaqayaa wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxweynaha oo runtii midhahan inay dhashaan maanta aynu aragno waxa kale madaxweyne ciidanka qaranku waxa weeyaan qarannimada Soomaaliland astaanteeda weeye marka maadaama ay yihiin deyrkii qaranka waxaan madaxweyne soo jeedinayaa ka codsanayaa maanta ragga shahaado muxuu ahay biladaha dahabka ka dhex qaaday Afrika aad baan kaaga mahad celinayaa waayo maanta qarannimada aynu ku faanayno iyo jiritaankeenna hawsha adag ee aad u guntatay militariga bay ku dhisan tahay waana ku mahad celinayaa madaxweyne waa la idinku hambalyeynaya waxaa idinka doonayaa aqoonta keentan iyo horumarka in ciidankana ku dhistaan oo ciidanka loo dhismo oo sidii hore soo gurtaan xoogga waxaan saaran dhismaha ciidanka hadduu ciidanka loo dhismo qaranka u dhismaya haddii ciidan la waa dhismaayo annaga madaxweyne ahaan iyo xukuumad ahaan iyo la taliyaha siyaasadda madaxweynaha oo ninka dee arrin dhariga dhammaantii waxaa nagu waajiba inaanu ka ilaalino ciidanka qalindaarka ciidamada haddii la qalindaaro socon mayso ciidanku ma qaadi karo musuqmaasuq ciidanku ma qaadi karo xeer jebin oo sharciga in nina laga dhaafo in lagu dabaqo ciidanku ma qaadi karo inta ciidanku markuu da' noqdo hawlgabka yahay muxuu xuquuq leeyahay da'deeda buu ku noqonayaa hawlgab hadduu dhaawacmo maxaa buu noqonayaa taasi marka waxay maraysaa gabagabo dowladduna way baaskarisay waa ku dhaqmayna oo noqon mayso ninkii ciidanka ahaa inta lagu guuro uu naafoobo ama bukado ama gowa in lagaga taga suuqa ma noqonayso laba in dhulka danta guud ee dadka beeraha laga qaadayo inay noqdaan dhul loo dhiso ciidamada iyo shaqaalaha dawladda oo milishiibay dhul wal ninoo beer lahaa ama meel wala banaanba dawladda hoose waa qorsheeya wasaaradda hawlaha guud iyo waxaan faraynaa dhulka danta guud waxa kow ka noqonaya danta guud waa maxay waa wax qaran ku leeyahay dhakhtar garoon lagu ciyaaro police station iyo shaqaalaha ciidamada meel degaan waa ceeb nin qaranka u dhimanaya oon dhul balahayn oo caruurta guri ay gasho maalin bal leeyahay halkan cid baa